tan iyo dhimashadii hogaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qadaafi oo ku dhintay gacanta jabhadda bishii Oktoobar ee 2011. Wax badan ayaa laga qoray oo laga hadlay taariikhdiisii halgamaagaasi weynaa, hase yeeshee wax badan lagama sheegin arrinta la xiriirta ilaaladiisii haweenka ahaa ee la socon jiray marka uu safrayo. Waxa uu ku caan ahaa jaceylka haweenka, isagoo guursaday 2 jeer. Waxa uu lahaa 2 xaas, gabadha iyo boqolaal ilaaladiisa oo dumar ah oo qoryo ku hubaysnaa. Waxaa kaloo uu jiray kalkaaliso caafimaad oo reer Ukraine ah iyo dumar badan oo taageerayaal ah oo agtiisa taagnaa intii uu noolaaba. Xaaskiisii ugu horeysay waxay ahayd maclimad iskuul. Waxay kala tageen 6 bilood kadib guurkoodii, waxayna isu dhaleen wiil la yiraahdo Mohammed. Xaaskiisii labaad, Safiya al-Qadaafi, oo ahaa kalkaaliso caafimaad, waxay u dhashay 7 caruur ah oo ahayd haweenkii gabadhii muddada dheer uu isla joogeen. Si kasta ha ahaatee, dhammaan dumarkii uu ku hareereysnaa Qadaafi waxa ugu hadalaynta badnaa haweenka ilaalada u ah. Ciidankiisii ilaalada ah oo haween iyo kalkaaliyaasha caafimaad ayaa ka dhigay Qadaafi hogaamiye ka caan ah dunidan. Sida warbixinta lagu sheegay, ilaaladiisa gaarka ah marka laga soo tago dumarnimadoodu, waxa uu ku xilan jiray inay yihiin gabdho bikra ah. Intaa waxaa sii dheeraa waa inay ku dhaartaan inay naftooda ku bixinayaan ilaalada Qadaafi oo habeen iyo maalinba ay la joogaan. Ilaaladani la tababaray ayaa lahaa xirfado militari, waxayna ku xildheeraayeen adeegsiga hubka sida ay sheegayaan warar kala duwan oo laga helay dibadda iyo gudaha Liibiyaba. Majalada lagu magacaabo Huffington ayaa sheegtay in haweenku ay tahay in marka hore ay tababaro ballaaran oo la xiriira militariga iyo hubka ka soo qaataan jaamacad gaar ah kahor inta aan si rasmi ah loogu qaadan inay ka mid noqdaan ilaalada madaxweynahaasi. Qadaafi wuxuu ku fikiray inay muhiim tahay in la tababaro dumarka quruxda badan oo loo rogo dagaalyahano. Haweenka waxaa loo xiray kabo soo jiidasho leh oo ay kuwa ciribta dhaadheer, taas oo la sheegayo inay kasoo horjeedo shuruucda dal haweenkiisu xirtaan dhar islaami. Waxay taasi horseeday inay dad badan dhaliilaan. Ilaalada Qadaafi waxay la jaan qaadeen xukunkiisii. Wuxuu isticmaalay fikirkiisii ku wajahnaa xoreynta haweenka. Si kasta ha ahaatee, markii dambe arrinta naxdinta ayay soo bandhigeen qaar ka mid ah haweenkii ciidanka ahaa, iyagoo sheegaya in Qadaafi uu kufsan jiray oo uu dhibaateyn jiray. Booqashadii Qadaafi ee Talyaanigii 2009 waxay qabsatay boogga hore ee warbaahinta kadib markii uu casuumaad ka helay 500 oo gabdhood oo qurux badan oo Talyaani ah, kuwaas oo casho sharaf ugu sameeyey qasriga uu ku sugnaa hogaamiyahani. Waxaa la sheegay inuu munaasabadaas u adeegsaday inuu gabdhaha ka dhaadhiciyo inay soo galaan diinta Islaamka, isla markaasna uu siiyey nuqul ka mid ah kitaabkiisa cagaarnaa. Warbixinno markii dambe soo baxay ayaa sheegay in ilaaladii hore ay sheegeen in Qadaafi iyo wiilashiisii ay kufsadeen oo ay ku xadgudbeen. Siham, oo ku xeel dheer cilmu nafsiga oo degan Benghazi, ayaa ururisay macluumaad loo adeegsaday maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC oo barta dambiyada dagaal ee Qadaafi iyo xulafadiisaba. Lama ogo tirada saxda ah ee ilaalada Qadaafi, laakiin 400 oo haween ayaa soo xaadiray sida ay sheegtay. Waxay la safri jiray ilaa iyo 30 haween oo ka mid ah 400. Gabadhan ayaa sidoo kale baaritaan ku sameysay eedeymaha sheegaya in xoogga Qadaafi ay kufsadeen haweenka intii lagu guda jiray colaadii ka bilaabatay dalkaas, taasoo keentay in la rido dowladdiisii, kadibna la dilo hogaamiyahaasi awoodda badnaa. Haweenka qaar ayaa soo baxay iyagoo sheegaya in ay hal mar kufsadeen 20 askari. Waxa uu ahaa nin inta badan dunida caanka ah, islamarkaasna aad looga yaqaano. Waxa uuna ahaa halgamaa weyn oo dalkaasi muddo dheer soo xukumayay. Inta badan
haweenka ilaalada u ah Qadaafi waxa ay xiran jireen dharka militariga ah marka uu warbaahinta ka soo muuqdo. Waxa ay ahaayeen kuwo dhinacyada ka taagan. Ugu yaraan marka uu dalal gaar ah u safrayo waxa ay sidoo kale xiran jireen dharka militariga ah iyagoo inta badan dhinacyada ka socon jiray. Waxa uu iska diidi jiray in haweenku ay hor socdaan, taas oo lagu macneeyay inay tahay in uu iska diido in uu haweenku fiiriyo markay hor socon jireen. Qadaafi oo warbixintani laga qoray mar dhow ayaa sheegaysa inuu ahaa nin inta badan aad xukunka u jeclaa kahor intii aan afgembigii ka dhacay Liibiya xukunka looga tuurin.